soo dhawaada asxaabtayda magacaygu waa Bilaal waxaan doonayaa maanta inaan kaaga sheekeeyo qisadayda waxaan kaa codsanayaa inaad kanaalkayga subscribe saarto si aad ula socoto qisadayda oo dhammaystiran anigu waxaan dhigtaa jaamacad bilowgii jaamacadda waxaan isbareen laba saaxiib oo aad u qiimo badan kuwaas oo la dhaho Axmed iyo Muxsin waxaan wada deganeen qol ka mid ah jaamacadda qolkaas oo mar walba ku wada sheegtan jirnay laakiin nasiib darro qaybta uu kaga yaalo qolku jaamacadda waxay ahayd meel ay nadaafadeedu aad u liidato meeshaas mar walba waxa ka soo uri jiray wax nadaafadeeduna aad ay u xumayd waxa lagu qubi jiray qashinka iyo waxyaabaha la soo ururiyo oo dhan taas waxaaba iiga sii darnayd cuntada jaamacadda lagu kariyo ma aysan ahayn mid aan amateed u hayo maxaa yeelay wax dhadhan may lahayn anigu ma rabo inaan caayo cuntada laakiin waxaan rabaa in aan qisadeeda iga sheekeeyo haddana waxaan bilaabi doonaa qisadeeda qaybtii koowaad run ahaantii qisadeedu waa mid aad u murugo badan hadda ayaan idiin bilaabayaa ee dhegaysi wanaagsan anigu jaamacaddayda kuma aanan qabin wax dhibaato ah maalin aniga asxaabtayda wada sheekaysanayna ayaa wuxuu saaxiibkay ku dhahay saaxiib dhammaan ardayda jaamacaddu waa ay guurayaan maxaa yeelay jaamacaddu waxaa noqotay goob aad u nadaafad daran oo ur badan ardaydu waxay u guuraysaa gooba ay karaysteen ee inaguna saaxiib ka guurnaa goobtan saaxiibkay kale ayaa hadlay waxau dhahay waa fikrad wanaagsan run ahaantii waa inaan ka guurnay inaguna goobtan maxaa yeelay waan ku qasbannahay isla markaana aniga ayaa hadlay waxaan dhahay saaxiibayaal xaggee ayaan ka keenaa kirada ilaan inagu ma shaqaysanee saaxiibkay ayaa hadlay waxau dhahay taasi dhib ma lahan shaqo ayaan raadsanaynaa lacagta kiradana waan iska bixinaynaa anigu waxaan dhahay waa si wanaagsan marka aynu shaqaysanno ayaanu raadsanaynaa dhammaanteed waan isku waafaqnay arrintaas waana soo baxnay annagu wakhtiga waxaannu u soconnay goobta lagu kireeyey guryaha waxaanan soo gaarnay goobtii lagu kirinayay guryaha waxaan la hadalnay ninkii kireynayay guryaha waxaan uga dhacnay arrintii jirtay waxau dhahay dhib ma lahan waxaan idiin hayaa qolkaasoo ku yaalla dabaqa qaybtiisa sare isla markaana waxaan ku dhahay ninkii waa mahadsan tahay waxaana siiyey waxoogayaaro lacaga run ahaantii ma ahayn lacag fara badan annagiyo asxaabtaydu waxaan bilownay in aannu soo gurno alaabtayda annagoo u guuraynaa qolka aannu karaysannay qolku ma ahayn mid aad u qurux badan laakiinse waxau iska ahaa qol lagu noolaan karo kaasoo iska caadiya xaaladaydu waxay ahayd sibay dhaantaa qolku waxa uu leeyahay qayb fadhiya iyo qayb cuntada lagu karsan karo yacni waxaan ka wadaa jiko ama mabdakh sidaad u fahmi kartaba anigu wakhtigaa waxaan ka soo baxay qolka waxaanan u soo baxay dibadda laakiinse waxaan arkay qolka naga soo horjeeda in ay degan yihiin 3 saaxiib kuwaasoo oo nala faca 3dii inamood ayaa iga soo horbaxay aniguna waxaan sameeyey sidii wanaagga islaamnimadu ahayd waana salaamay waxaan ku dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laakiinse nasiib xumo ima aysan jawaabin aniguna waan yaabay waxaas dhahay maxay ka wadaan sidan ciil badanaa arkuwanaa anigu isla markaa waan iska sii dhaqaajiyey maalmaha ka mid ah aniga asxaabtayda wada sheekaysanana ayaa waxay soo gaadhay ur aad u xun taasoo aan ka neefsan kari waayey asxaabtayda waxaan ku dhahay waxbaa ii soo uraya ee ma ila aragteen saaxiibkii waxau dhahay aniga xitaa aad ayay igu soo uraysaa maalinta aan soo degnay qolkan ayaan dareemay ina aad wax u soo urayaan saaxiibkii kale ayaa wuxuu dhahay aniguna xitaa waan dareemayaa urtaas laakiinse ma aqaan meel ay ka imanayso maalintii aan soo degnay dabaqa labaad markaan soo socdo ayaan urtaa dareemay dabaqa afaraad markaan imaadayna urtii aad ayay u sii saa'iday aniga ayaa hadlay islamarkaana waxaan dhahay waxaa laga yaabaa gurigeenna in ay ku dhinteen wax bisad ama jiir laakiinse saaxiibkii waxau dhahay maya waxba kuma aysan dhimanin haddii ay wax ku dhinteen gurigeenna waa aynu baadhaynaa isla markaas waxaan bilownay in aan baadhno gurigii laakiinse nasiib darro waxba waan ka weynay annagu markaas waan yaabnay waxaan dhahnay talow xaggee ka imanaysaa urtan aadka u xuni anigu isla wakhtigaa asxaabtayda waan ka soo baxay waxaanan arkay wiilashii naga soo horjeeday mid ka mid a oo qolkiisa ka soo baxaya waxaan ku dhahay saaxiib waxbaa noo soo urayaa ee adiguna ma aragtay urtaas intuu si cadhala ii soo eegay indho xuuxuna igu soo egay ayaa wuxuu dhahay ka hor dhaqaa gurigayga aniga wax ii soo urayaa ma jiraan haba yaraatee anigu isla markaas aad ayaan u naxay markaan arkay inanka jawaabtiisa maxaa yeelay indhihiisa ayaaba nooc kale ah anigu isla markaas waan iska soo dhaqaajiyey waxaan soo xidhay albaabkii isla markaana waxaan ka qishay meesha reefraha laga geliyay albaabka
waxaan arkay inankii oo ku soo noqday gurigiisii isla markaana waxa uu qoorta geliyey gurigiisii isagoo la hadlaya asxaabtiisa. waxa uu soo xidhay albaabka isla markaana waa uu dhaqaajiyey isagoo kolbinac eegaya. anigu isla markaas waxaan isweydiinayay ninkana nooca kalaa waxa uu samaynayo. anigu waxaan ka soo baxay albaabkii aniga oo gaadgaatamaya. waxaad moodaa in dhulku ila dhaqaaqayo. waxaan u soo dhowaaday albaabkii uu ninku ka soo baxay. waxaaba i soo gaadhay ur aad u xun. anigu isla markaas waxa igu adkaatay in aan neefsado. anigu isla markaa waxaan u soo noqday xaggii asxaabtayda. waxaanan u sheegay in aan soo ogaaday meesha ay ka imanayso urtu, laakiinse waxay dhaheen waa si wanaagsan. waxay asxaabtaydu dhaheen waxa inala wanaagsan inaan u sheegno in ay nadaafadda ku dadaalaan. anigu isla markaa waxaan dhahay maya way og yihiin waxa dhacaya, maxaa yeelay siduu igu jawaabay ninkii ayaabaan aad ula yaabanahay. anigu isla markaa waxaan ku dhahay dadkaasi waa dad aad u xun, maxaa yeelay dadka uma jawaabaan lamana hadlaan. laakiinse saaxiibkii waxauu ku adkaystay in aan u sheegno. waxauna dhahay waxaa laga yaabaa in ay bisad ku dhimatay ama jiir gurigooga. saaxiibkii kale ayaa wuxuu dhahay aniga xitaa waxa ila muuqataa inuu urtaas tahay meyd ama wax dhintay. saaxiibku wuxuu dhahay anigu garan maayo siday wax u socdaan, laakiinse markaannu jaamacadda ka nimaadno ayaannu ka tashanaynaa ayna marya jaamacaddan tagnee. aniguna waxaan dhahay hayeyna marsha, markaas ayaan ka arrinsan doonaa. jaamacaddii ayaannu soo aadnay. anigu maalintii oo dhan waxaan ka fikirayay waxyaabaha halkaa ka soo uraya iyo 3 wiil ee halkaa ku nool. markii aannu ka soo noqonnay jaamacadda waxaannu soo aadnay gurigii annagoo isla markaana galnay jikada, maxaa yeelay hadda waa habeen waxaana loo baahanyay inaannu cashayno. annagoo cashadii cunayna ayaan waxaan maqalnay wax dhulka lagu jiidayo. asxaabtayda waxaan ku dhahay wax yar suga waan soo noqonayaa. anigu isla markaa intaanan albaabka furin waxaan ka dhiishayay halkii aan maalintii hore ka egayay, laakiinse waxaan arkay ninkii maalintii oo 2 bacooda mudmadow aad u waaweyn jiidaya dhulka, kolba dhinac ayuu eegayaa. aniga isla wakhtigaa maskaxeeda waxaa ka dhex guuxaya su'aalo fara badan. waxaan isweydiinayaa talow muxuu noqon karaa waxaa bacaha waaweyn ku jira. anigu isla wakhtigaa ninkii waan waayey. waxaan u soo caray dhinaca asxaabtayda anigoo u sheegaya in ayna furin albaabka. waxaan ku dhahay haddaba waan ii degay, ha isku furin albaabka. waxaan soo aaday dhinaca daaqadda anigoo ka fiirinaya ninkii halka uu maray. waxaan arkay 3 wiil oo haysta midkiiba 2 bacood oo aad u waaweyn, bacahaasoo midmadow. isla wakhtigaa waxaa soo yaacay asxaabtayda iyagoo ila arkay waxa aan meesha ku arkay. waa ayna la yaabeen goobta waxa ka socda. isla wakhtiyeer kadib waxaa yimaaday gaadhigii xashiishka. nimankiina waxay saareen bicihii waaweynaa gaadhigii xashiishka. gaadhigii marka uu dhaqaaqay nimankii waxay u soo dhaqaaqeen xaggii gurigooga. anigu asxaabtayda ayaan su'aal weydiiyey, waxaana ku dhahay maxay tahay waxa meesha ka socda. saaxiibkay waxa uu dhahay waxaa laga yaabaa inay iska soo nadiifiyeen wixii urayey, taasna ay u sababtay inay gaadhiga xashiishka iska saaraan. saaxiibkii kale ayaa wuxuu dhahay aniga xitaa arrinkaas ayaan kugu waafaqsanahay, waxaana rajaynayaa in urtii ay baaba'do. aniga laakiinse waan hadlay. waxaan dhahay maya ma dhici karto, maxaa yeelay haddii ay iska soo nadiifiyaan wixii urayey waxa ay ku ridi lahayn bacahan waaweyn meesha qashinka la dhigo. laakiinse maxaa sababay inay bacaha la hortaagnaadaan guriga hortiisa? arrin kale ayaa ku duugan. waxaan dhahay waan ogaan doonaa maalmaha ka mid a sirta ku duugan bacaha. saaxiibka ayaa hadlay. wuxuu dhahay hay halka arrinkii noogu daaya, ina marsha aan ku noqonna cashadeennii si aan uga wada hadalno arrimaheenna adduunyo, shaqooyinkeenna iyo waxbarashadeenna. saaxiibka ayaa dhahay maanta waxaan soo helay shaqo aad u wanaagsan, laakiinse taas lacag fara badan laguma qaadanayo. saaxiibkii kale ayaa wuxuu dhahay waa si wanaagsan, maxaa yeelay lacagteeray nooga soo baxdaa waxaan ku qabsan karnaa waxyaabahaan u baahannahay. suu sidaas maaha saaxiib? haa, waa sidaas. asxaabtaydu inta ay ku mashquulshalaan shaqaya waxyaaba aan loo joogin, anigu daaqadda ayaan ag taagnaa. waa ana fikirayay, waxaan la yaabanaa waxyaabihii ay raggii ay sii wadeen. saaxiibkay ay soo jidiyey wuxuu dhahay bilaal ma ku faraxsantahay shaqada aan maanta soo helay? anigu isla markaana waxaan ku dhahay saaxiib yaal suga, waan soo laabanayaa. asxaabtaydu waxay ku dhaheen xaggee tegaysaa? xilligani xilli la baxa maahane, waa wakhti dambe. anigu waxaan ku dhahay asxaabay ha iga warwarinna, marka aan soo noqdo ayaa idiin sheegi doonaa. anigu isla markaas waxaan ka soo baxay albaabkii anigoo albaabka hor taagan. anigu isla wakhtigaa waxaan sugayay tagsi, laakiinse nasiibana waa yimaaday. ninkii darawalka ayaa waxaan ku dhahay anigu waxaan u baahanahay inaad geyso meesha qashinka lagu qobo, maxaa yeelay waraaq aad u muhiim ayaan halkaa ku soo ilaaway. waan ku barayaa fadlan ma igeyn kartaa halkaas? ninkii darawalka aad ayuu u naxay. waxa uuna dhahay
meesha qashinka lagu ururiyo aad ku ballaaran miyaad waraaqan ka soo heli kartaa laakiinse aan waan ku adkaystay waxaan ku dhahay waqti badan kaama qaadanayo laakiinse waxa ii wanaagsan inaad halkaa geyso ninkii darawalka waxa ugu dhahay ha ka warwarin taas aniga ayaa ku geynaya waxaan ku dhahay waa si wanaagsan waad mahadsan tahay ninkii darawalka waxa uu geeyey goobtii waxaanu ugu dhahay markaan ka degay anigu waxaan ku siinayaa 15 daqiiqo haddii aad intaa ku soo noqon weydo waan iska dhaqaajinayaa haddaba la soco anigu waxaan ku dhahay dhib ma lahan waan ku soo dhamaysanayaa arrimahayga intaas haddii aan soo waayana waan iska soo noqonayaa markii aan ka degay gaariga waxaan arkay gaari ka sii baxaya goobta markaasna waxaan eegay ninka darawalka ee gaariga wada waxaanan ogaaday gaarigu inuu yahay gaarigii ay saddexnin soo saareen bacaha waana farxay waxaana dhahay hadda ayaan ogaanayaa sirta ku duunid bacaha madow waxaan u soo dhaqaajiyay xaggii bacaha anigoo ka soo ag dhowaaday laakiinse naqaska ayaa igu adkaaday inaan qaato maxaa yeelay ur aad u badan ayaa ka soo baxaysay anigu isla waqtiga waan ma tagay waxaan furay bicihii waxaan ku arkay wax aad u la yaab badan waxaasi waxa uu ahaa hadda ayaan idiin sheegayaa waxaan ku arkay bacaha inay ku jiraan lugadad iyo qamcadad anigu markaas waan yaabay su'aalo fara badan ayaan isweydiiyey waxaanan isweydiiyey kuwani bani'aadam ma ahan miyaa mise xasuuq ayayba ku hayaan bani'aadamka maxay tahay sidani anigu isla markaas waxaan u soo caaray dhankii gaadhiga asxaabay qisadeeda maanta qaybta koowaad intaas ayaan ku daynayaa haddii aad xiisaynayso qisada qaybteeda labaad channelka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto leegtana saarto asxaabtaadana u sii shargariso